salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. wararka diyadka ee ka soo daldalmaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegaya inay majac ku halaysteen dad kor u dhaafaya 80 qof oo madax madow kuwaasoo la ysaga soo dhigay huuri ay ku maraayeen webi ku yaalla bartamaha dalka kongo. dadkan ayaa u badnaa beeraley ka tallaabaya webigan oo mooska soo jabsaday iyagoo naawilaya inay u gudbaan sida tan iyo magaalo ku taalla qarka webigan ay ku dhammaadeen. dowladda kongo ayaa ku qaylisay inay aad uga xun tahay sida wax u dhaceen tiyo la howlgeliyey dhammaanba qolyihii ku qaybsanaa inay soo samata bixiyaan dadkan biyaha ku daatay, taasoo keentay inay raacdaduna baadhitaanka u labalaxaasato. dalka kongo oo ka mid ah kuwa ugu ladan qaaradda gudan ee afrika ayaa docda kale ah mid ay joogto ka yihiin bele iyo xir siclow loogu dawgalay, gaar ahaana colka, abaaraha, fatahaadaha iyo weliba gaadaha goor noolba dadka gebagabaynaya. wararka iyaguna nagaga soo burqanaya magaalada berbera ayaa sheegaya inay habeenkii xalay agaraadam noqotay, islamarkaana ay sumabaxdo ahayd magaalada berbera oo waayahanba la kadeednayd ila islaan habeenkii la soo daristaa. magaaladan oo ahata somalilan oo dhan habta ayaa la biniixinayaa inaanay helin wax lagu iftiimiyo ama ay dadku wax ku bidhiiqsadaan tiyo habeenkii xalay ahaa mugdi uu isugu baxay ka gadaal markii ay gebi ahaanba dam yidhaahdeen dhammaanba dhagaatiyadii dabka qaadi jiray ama maayadda jiidi jiray. dadka reer berbera oo xojin waaya hanfiga xagaaga ee ay leydhka kaga dhabacan jireen ayaa la dheehanayay iyagoo baraha bulshada kusoo gasangeeraya cabasho ay u dawinayaan ciddii hawshan mas-uulka ka ahayd, gaar ahaana duulka loo gaatay inay magaalada elayska u shidaan. dowladda somalilan ayaa lagu dhaliila inay hagratay oo aanay waxba u qaban magaalo xeebeedda berbera, maadaama oo aan ilaa hadda maare iyo daaqad loo helin. iftiin la-aantan ay la kadeedan tahay magaaladani oo lagu tilmaamo inay tahay bogcadda laga dhuuyo, islamarkaana laga dowdamo damashka somalilan looga soo waarido dalalka carre iyo adeegyada kale ee loo dawinayo sida tan iyo dalalka ah uu isweydaarsigu kala dhexeeyo. iyaguna wararka laga helayo isla gudaha ceelka hargeysa ayaa tooctoocinaya inay tarab dadka u leynayso qandho fil daran oo lagu seebiyey in laga wiibsaday kaneeco magaaladan lagu safanasiiyey. fireeyaasha ayaa cimid noqday iyada oo la waayey meel la kala dhigo dadka jalaadaya iyo kuwa kale ee ay naftu ku daba yar tahay. qandhadan oo labadii gu ee u dambeeyey rubaha dhigatay somalilan ayaa lagu soo warramaya inay soo jiibisay bulsho aan yarayn, kuwaas oo ay qaarkoodna ka gugtay. dadkan oo u badan haween iyo dhallaan qadhada xejin waaya ayaa la tibaaxaya in loo soo dhigay ama lagula soo eertay meelaha dadka lagu baanto, halka qaar kalena lagu boogadheeyo aqalada ay baralaatiga u jiifaan. xukuumadda somalilan ayaa u muuqata inaanay ilaa hadda wax dooc iyo dareen ah ka haynin kaneecadan gaagaabisay dadkii reer hargeysa, kuwaasoo laga baqa qabo inay u sii durugto ama ay ku sii faafto magaalooyinka kale ee uu dalku ka kooban yahay. xumadan daran ee loo jiifo ayaa la soo tabinayaa inay dadka ka nuugayso dhiigga iyo dheecaankaba, iyadaoo qofka ka dhigaysa harag aan tabar iyo taagtoona lahayn, islamarkaana ay xididada kaga wareegayso. wiilalkaad nagala socotaan waa taar t v. waxaa isaguna maanta ka dhexi lahay xisbiga mucaaradka ah ee waddani siyaasi maxamed cabdilaahi cumar oo hore uga tirsanaa xisbiga iyo talada somalilan ee kulmiye. madal ilyartu isqabatay oo lagu soo dhoweynayay ayaa ka dhacday ceelka hargeysa, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dhammaanba hoggaanka iyo qorweynta xisbigaasi oo hogaaminayay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo uu wehelinayay guddoomiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan. xildhibaan laab saalax oo ugu horreynba goobta ka hadlay ayaa ka tibicsiiyey inay ka xisbi ahaan iyo weliba ka xildhibaan ahaan gacanta ku hayaan gobolnimada magaalada gabiley. wuxuu sheegay in loo baahan yahay sidii dadka loo walaalayn lahaa ama la isugu soo dabaali lahaa, iyada oo meesha laga saarayo xurgufda ay siyaasiyiintu kala dhex dhigeen beelaha walaalaha ee somalilan. xogayaha guud ee xisbiga waddani ayaa isna sheegay inuu maxamed cabdilaahi cumar ka mid yahay madaxweynayaasha jidka ku soo jira ee ka soo jeeda gobolka gabiley. wuxuu tibaaxay in haddiiba uu cabdiraxmaan ciro haansado talada somalilan uu muuse biixi uga fiicnaan doono ama u dhaabi doono bulshada reer gabiley. siyaasi maxamuud cali hayste ramaax oo garida qaatay ayaa sheegay inuu xisbiga waddani doorashada ku libaysan doono codad gaadhaya 150 kun oo madax madow, iyadoo kulmiye looga fadhiyo inuu aqbalo wixii u soo baxa. ku-xigeenka jegada madaxweyne ee xisbiga waddani ayaa si kaliya laaba ugu soo dhoweeyey siyaasi maxamed cabdilaahi cumar oo uu bitiyey inay isku deegaan ka soo wada jeedaan. isna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee magaalada gabiley ayaa madashaasi kaga dhawaaqay inuu gebi ahaanba qubay hilka iyo heeryadii uu u siday xisbiga kulmiye, islamarkaana uu ku biiray xisbiga waddani. guddoomiye xirsi cali xaaji xasan ayaa isaguna biniixiyey in isbeddelka dalka ka dhici doona uu iska yahay walaaleeye, kaasoo la isugu soo laab xaadhiyo bulshada somalilan min daraf ilaa daraf.
cabdiraxmaan ciro ayaa isaguna ka dhawaajiyey inay gabilay tahay halkii ugu horreysay ee uu ka bilaabo siyaasadda uu maanta dhexboodayo. wuxuu sheegay in xisbigii kulmiye ay kaga hadhay caytan iyo habaar maadaama oo ay waayeen wax kale oo ay bulshada u sheegaan. xildhibaan Timo Jilic ayaa isaguna gabale ka caddeeyey in siyaasadda xisbiga wadani ay ku jirto sidii dib loogu furi lahaa wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somalilan, taasoo la horaan qaadi doono haddiiba ay ku guulaystaan doorashooyinka soo fool kale. ugu dambayntii siyaasi Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa halkaa ka sheegay inuu Muuse Biixi dartii uga tegey ama ku waayey umbarkii wasiirnimo ee uu ka hayay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo, isagoo intaa ku sii daray inaanay Jabuuti ahayn nacabka iyo cadaawaha Somalilan. wuxuu sheegay in cabdiraxmaan ciro yahay ninka keliya ee ay maanta u jeel qabto Somalilan, taasoo aanay ka gabangaabsan doonin inay udbo ugu qaadaan sida tan iyo cabuudha madaxtooyada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي عبد الخالق عمر محمد وحنوي معاود تي في قتار تي في هذا الأمير ياكو أركي ونن قولات كحول بين اللي مفروض لده وكتشيدي يسوق ويرني كلا عبد الكريم أحمد محمد حنف لده ويرري أيان داوضي وحن سيدي تاريخي ركوبا هذا الكاكله أنا جو أنكو فجانينين dadku taariikhay leeyihiin history bay leeyihiin. xildhibaanku saddex qodob buu ka hadlay. saddexda qodob uu ka hadlay mid waxay ahayd inuu yiri waxaan ahay reecaynasho oo hadii la kuuriyay waka. midna waxay ahayd inuu taariikhdii SNM uu isagu isku suntooyin ninkii bilaabayna waan ahaa ninkii hadii bayd maayo ka falaxshina waan ahaa. isagoo Cabdikariin halka ku riixaya inuu Cabdikariin aanu SNM wax isra ku lahayn ama uu ahaa saraakiisha SNM la soo laayay ku yaasi jiray. horta waxaan leeyahay xildhibaanka marka koobaad aniga oo hadalka soo ururiyay haddii Cabdikariin Axmed Xanif uu garanayo saraakiisha SNM ee deegaamada ka soo jeeday meeshii lagu aasi jiray iyo kafanihii la gelin jiray. xildhibaan adiga waxaan ku weydiinaynaa Lixle iyo Maxamed Cali meeshii ku aasan yihiin ma garanaysaa? waxa la sheegay deegaamada mujaahidiinta iska soo jeeday niman nool oo SNM sheegta oo meydkoodii ka carreeyni jireen ma dhici kartaase inuu xildhibaanku kuwa ka mid ahaa. xildhibaan ninkii loo oran jiray mujaahid Lixle meydkiisa ninkii tuurta ku qaatay nin habar jeclaa buu ahaa Faarax Xafiis oo rag badan oo deegaankiisa ka soo jeeday oo ka yacay baa jiray meydkiisa. waxa kaloo jirta oo meesha taala xildhibaanku markuu golaha yimi ee golaha baarlamaanka yimi taariikha intaan ku hayno waxa la sheegay ololii ugu horeeyay uu qaaday inuu yiri waxaan qabaa xanuunka kansalka lacag la ururiyo. waxa kaloo jirta wuxuu yiri Cabdikariin taariikhda ugu weyn uu leeyahay waxa weeye kulmiye. Cabdikariin saraakiishii deegaankiisa ka soo jeeday meesha ku aasantiin uu garanayo kuwii nolosha ku soo badbaaday inuu kursigu gaarsiiyo Siilaanyo raggii soo saaray kursiga gaarsiiyay buu waxa dhici karta siduu xildhibaan Food uga cararay meydkii Lixle inuu Cabdiraxmaan Cirana isagan kursiga gaarsiin uu ka cararo waana sidaan qabayna dhacayso. wuxuu sheegay uu yiri waxaan ahay nin raacaynasho ah oo waxaan u sheegay Cabdikariin Axmed Xanif inuu yahay nin Ibriin Yuusufuhu reer Sahaalaho reer Cabdi Faradaraho deegaan geelisna gool laaliye hayay iyo dahya la daaqayo. deegaanada taariikhda marka laga hadlayo SNMna family-ga Xanif inuu ka soo jeedo family deegaamo khaas ah oo SNM ka soo duuli jirtay iska lahaayeen oo deegaanayo aan yacni hadduu dagaal iyo wax la dilo wax tarayso aan loogu faani karin. anigoo dhowraya sida ugu habboon ee hadal loo mariyo miyiga raacaya haddana waxa jirta wax badan oo aan dib u dhigayno oo hadday saasoo kale ku sii socoto deerinta la isu sheegi doono. weli halkaad nagala socotaan waa Taar TV iyo Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka dhurmaayay deegaanka Dharkeyngeeyo oo uu gaadhay sidii waxoogay dabka kaca loogu soo baajeerin lahaa maleeshiyada iyo maryaclasta beelaha dhulbaanta ayaa sheegay in ciidamadii beesha ee ka guulaystay Somalilan ay darxumo iyo dacdarro la hogaanayaan agaha ay kaga jiraan jibcabeega. wuxuu sheegay in maamulkii cantatabka ee Khaatumo lagu hadlaynayo dhuunigii ciidamada iyo qalabkii dagaalka ka soo jiray waxaan gaadhin halkuu isla markaana ka soo horjeeda Somalilan oo jirtay 33 oo cirar la ka dhashay. wuxuu tibaaxay in gurnadii ciidamada la isku tuurtuurayo oo qolo kale ku hadlaynayso taasina ay soo dadejin doonto in laga ilka xaydhaysto oo ay noqdaan in jiibta iyo in joogta.
wuxuu ka codsaday beelaha dhulbaahantay inay xiniya isku booraan oo fadhiga ka hinqadaan islamarkaana u istaagaan sidii marada loogu qaban lahaa maleeshiyada beeshooda oo qarka u saaran inay ka baxaan faryaro bideece. wuxuu ku halaanhalay inay xisbiyada mucaaradka ee somalilan ku taamayaan dhulka beelaha dhulbaahantay oo ay leeyihiin waanu soo celin doonaa markaanu talada iska kala ridno xilli muuse biixi qalqaalinayo duulaan uu ku soo ekeeyo deegaamada beesha khaatumo. wuxuu sheegay in bogcadaha lagu soo maqan yahay ay yihiin dhulkoodii oo aanay cidna waxba ka haysan isla jeerkaas aanay weerar ku ahayn dhul la weliyo beelaha somalilan. wuxuu ku tawaawacay in kooda loo soo qoslaayo oo la doonayo in la magagafaco taasoo u baahan buu yidhi in wax layskaga ogaado haddii laga tegi waayana ay ilaahay ku reebi doonaan. hadalka garaadka ayaa ku soo beegmaya xilli ay duulka huwa la yidhi gebi ahaanba waayeen wax lagu hakiyo oo ay ku sii gawdiidaan difaacyada iyo jiidaha hore gaar ahaana maleeshiyadooda iyo weliba marya calostooda muuteynaya furimaha hore la yska baareeganayo.